عليكم السلام ورحمة أبو وافي عنه نمبر كذا لباهية أو الدولة أي شيء ما قعدنا وحال وشيء عبد الله الراجع أو إن مقدشة إنه القلعة كفولي ربطان وعاد سخر ربطان أريما صاربنا إنا كاوريس إنه واحد كجرا وارتني وإنا سو على الشام وأباهنا يواربي وان قرتي نيو حالي جور أدو لغسا عمله وحي كبلودي إلا حالي إلا يساكي أنا نشغالان هايورتا وهذا واحد جوجا في 2 أكتوبر وحان هاي نك قوليها قرار رنجي هي مرسان عبد الله الراجع شيء ساي ولا حقولون اللي مرة تلفون كي نمبر كي مقع كوكر هرمودا وسكرتا وحا صاحبه وربا فرضا هدي إسلام نمجرتو بني آدم نمجرتو نين مسكينة أو حماريان لا بقولي لما نمبر أو أنا جي أفلق دينيس أو واسقريرتا ورنين اسقريرتو حاجة مقلاي وحور كاغا أنا مري واسقريرتا وحا مقلاي كودي جوجي إيدي كلها سوت خلاق وعيني سوير باسدية مقرتي ورحالة دوايا بساعتي بالله انتاقنا اللمبر كان لمبر معروف وواي اللمبر كان ما تلافن كان عندك صوت القاطي وكل بيتناي عليك اللمبر كاي حد عليك وركاي مأمين كثير دان كوشة اللمبر كهرمود ورصو مقع فوق ويدي عبد الله جاد زاريو ونحن عارفين مدة ومية عليك مقرتي magacaada Cabdullaahi Raage in Umar ayaa lagu soo qoray ee numberkan hadii magacaasi aanan lagu dhihin magacaadu muxuu yahay aniga Cabdirashiid Aadan Nuur la yiraahdo walaal 21 October ayaad joogtaa warkan markuu soo baxay kadib wax walwal ah oo dhanka saameynta amniga ma dareentay aniga amniga hadda markii aan oo shar xalay markii laba saac wixii ka dambeeyay ilaa ay hadda shaqooyina watay bareen hataa wixii u kala xalistaan la haye markii aniga nin shaqaale oo waa guriyaha rinjeeyaan ay ma garatay halka aad joogtid ma laga garanayaa meeshaan deganahay waa la ii garanaa macal gudoomiyaha degmada ay garanaayo macal aadkiisa ay garanaayo deegaanka meeshaan jooga macruufan ka wax xiriir ah dawladda ma la samaysay warkaan la baahiyay kadib aniga tab uma qabin idaacadda kama dhagaysan telefoona isoo galay idaacadda in xal laga dayay saakaan maqlay lambarada fuduula u qadahay warkay waa sax wax beer ma rabo ma ku fakartay waliga inaad isqarxisid ilaahay ma kaso inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun warqarxa sheegaysa aniga ilaahay inta wili nafteeda ka keeno war aniga qarx niyo waa ilma in la su'aal xataa shabaab abadkeena ma naqal farac ayna malihin sijino malihiniyo waan gartay gudoomiyaha degmada aad ii sheegtay inaad garanaysid ma u tagtay gudoomiyaha hadda laki ila joogo waxaan u sheegay inaan u tago gudoomiyaha aniga wiil yaro ma dhow yimid waaye aabiisa maxamed cumar la yiraahdaa aabiisa isku fiicanahay oo gurigiisa ataan sameeyay magaratay hadda waxaan rabay inaan iraahdo maxamed cumar u tago aan iraahdo niyo arintaas oo layga burbixiyay oo idaacadda laga sii daayay in ay been tahay lambarkaygaas laga dhigay inaan iraahdo gudoomiyaha u tagaa rabaa warkaan laakiin dawladdu inay baahiso maxaad ku macnay kartaa maxaa danta laga leeyahay muxuu yahay aniga hadda markay idaacadda i warsatay inay warka dhab yahay waa dareemaa laakiin markii hore waxaan moodayay dad aniga meesha iga dhaxi rabo oo aniga ifadwiinaayo aan u haystaan ilaa imise qofood ayaa ku soo wacday wallaahi lama soo koobi karo 1 milyan dad xataa naag waxay soo qaadayaan ma hordina ku aniga ma warka adiga aniga waxaan bahurti xalay wallaahi hadda khalkhaliyo waswaasi u eegeliyin imise sana ayaa jirtaa 48 sano caruur iyo qoysna waad leedahay sadexaas baan leeyahay caruur aan leeyahay alxamdulillah waan dhaqanahay iyaga ayaadna u xamaalataa hayaga u xamaashaa waa allahay allah walaxan weligay galayna maaha meelay ka dhacaana ma jecli dhicitaankoodana waa ka naxaa ma garatay waan gartay aniga ayaa la waswaasan qof bila aadan oo naftiisa jecel qaabka oo isku qarxiya waaga aniga soo xasili waayay waxay kalifaayeen maxaa kugu yaab hadda ayayga dhulka ma taagnaa ku yidhi ilaa hadda muujada warsaaka aniga alkamin guriga ka sameeyay meesha la yiraahdo al-nasr 2 guriga ka sameeyay guriga dheer hadda oo Victor Skolka October ka soo jeedo todobada biyana oo geedaha ku xiran yihiin jahalad nin furan ay oo xadaas ku wada ma garatay warniyo wala aniga ii qalmin aan qaada karin oo dhagtayda u roonayn qalbigayga u roonayn yaa la weydiinaya numberkan hormuud muddana waad wadatay muddana wada hormuud naftigeeda saakay hormuudku weyna tagay maxay ku dhaheen waxaan idin lambarana ay haysta waana ka shaqaysanahay EVC waa tulala shaqooy waa ka amri lahaa waa lagu dhagan yahay numberkan wuxuu dad ku yaqaan oo meelaha horta suuq baad waxa taqaan ma jiro haye suuq baad aniga waxaa iri dadkan Soomaali ay shaqaalaha nin bari ku yimaadaan koonfur ku yimaadaan ogtaadi waan gartay
waxaan dadka meesha kala degan oo kama aqaan lambarka waxaan dadka iskama warqabay 1 milyan qof oo isoo waxay hal meel u fadhiyo moogtahay marka hal kale ma haydinaa reedinka waxay anaga lambarkayga horta wax ku xiran ma jiray lambarka xataa waxay idhahdeen lambarka bedel iyaga ayaa ku yiri nambarka iska bedel maxay tahay lambarka lagu yaqiino uu soo baxay oo aan wato waaye iska bedel maxay noqonaysaa iska bedel maxaa lambarka wax kala lagu sameeyay wax kala lagu qoray ila hadda laga sheegay aniga ilaa hadda aniga la iskoor runba aniga uma haysan wax ma haysan laakiin hadda waa qanacsanahay maadaama ay idaacadii soo wacday wax aan shaqo ku leeyahay ma ahan ma garatay waan gartay waxaad ka hubsan kartaa lambarka hadda adiga soo wacday oo 5 intaasi kadib sidoo kale waxaynu la xiriirnay magaciisa lagu sheegay Xasan Cali Liibaan oo dawladdu ay sheegtay in uu isqarxin rabo shawl mujaahidiinna uu ka tirsan yahay isaguna waraysi ayaan ka qaadnay waxaana uu waraysigu u dhacay walaalow waxaan kaga jawaabayaa anigu nin muslimaanahay qarxis diyaar uma yihi lambarkaana anaa iskale nin shacab oo iska xamaasanahay lambarkayga dawladda ka been sheegtay ma garad marka ilaa xalay ilaa saaka ilaa 500 oo qof baa soo wacday waana la yaabanaa dadkaan ujeedada ay leeyihiin marka dawladda lambar qalad ay iga gudbisay lambarkayga baa qalad loo qoray marka anigu qolada isqarxiska ma yihi ma garad dadka ku soo wacaya maxay ku leeyihiin wallahi markii dadka soo wacaya waxay leeyihiin iyo gaari noocaad wadataa waa isqarxinaysaa baa la yiri iyo isku qarxin meeshii dawladdu joogto adigu magaalada Muqdisho in maxaad ka qabataa Muqdisho ma jooga saaxib halkee joogtaa xuduudan bitagana waa ku shaqeynaya dhankee way xuduudan kee ka joogtaa dhanka waxaan ka joogaa qoray xageeda qoray ma taqaana area lugu ma taqaana waan gartay halkaasaan deganoo aribaan barraacdaaba yaa baadiga soo aray madaxda dawladda ma la xiriirtay hadaad wax ka garanaysid warigayba ma maqal adigoo kale way adigu keetaa wariyo way oo xageed wariyo ka taa idaacada Al-Furqaan la yiraahdo Al-Furqaan walaalow khayr Allah ku siiyo lambarkan qalad baa loo tabiyay aniguna waxa sheegaysaa shughulku malihi in islaam oo hayntii raacdo iska xalaashanahay ilaa saaka idaacadu lambarada dad bay soo wada waayay inay cawdi bilaysta moogi xal kaleba waa liiga waay maxaa hadda ku qorshaysan wallahi waqtigayga ma dhaafayo laakiin waxa ii qorshaysan ma jiraan magaalada Muqdisho inaad joogtid ayaa la sheegay oo waliba aad isqarxin rabtid adiguna waxa leedahay Muqdisho ma joogi wallahi bilaa Muqdisho ma joogay hadii ilaahay ma adii ugu dambeyntii hadda maxaad u sheegaysaa dawladda Muqdisho fadhida ma naga dhaxeeyo iyada ayaa warkan ka qortay aniga iyo iyada waa wada hadlaynaa ninkii report kaas gudbiyay baan yaan haystaa